asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha dhammaan ee degan magaalada naymeyqan iyo dhawaaxigeedaba waxaa jiri doona 1 juun erst yuni 2024 qoban daakhin. maxaa la furayo marka? waxaa la furi doonaa meel waxbarasho weekendi courses lagu qaata qaasatan maalinta sabtiga ool wax noo furnaayeen meel axadda lagu qaata. marka baahidii darteed jirto ayaa meeshan maalinta sabtiga ayaa loo baahday. marka meeshaana la raadiyey muddo waqti lagu bixiyey, ilaahayna wuu soo sahlay. obindaaq marka maxay tahay? obindaaq macnaheedu waa imaaneysaa dabcan koorsooyinkay jira waad arkeysaa. hadda dabcan foomama yaala, haddaad danaynayso waa isdiiwaan gelinaysaa, inskrifana sameyneysaa. haddaad su-aalo qabto su-aalaha dadka weydiineysaa. haddii kalena waxaa jira meesha shaah iyo kofe iyo maaragtay waxyaala iska macmacaano xooga waa iska sheekeysanaysaa. marka kaasaa lagu magacaabaa oo bindaaqu dadka isku arkaayo. waxyaalaha lagu baranaya waxaa kamid ah barasho leeran soomaalishtaal, soomaaliga in lagu barko soomaaliga. marka waxaan waa idinku wargelineynaa. soomaaliya marka buwaagu leeyahay buuga koowaad ama buugayn niifooyo kala duwan uu leeyahay, laakiin ilmahena halkan ku dhashay inta badan af soomaaliga ma yaqaanaan. marka waxaan isku dayeynaa ilmahana maadaama luuqadda hollandees laatiin tahay oo u fududahay inay bartaan. qodobka labaad leeran tajwiid. tajwiidka waxaa jira ilmo qaacida nuuraaniya dhameeye. haddii ilmahaaga qaacida nuuraaniya dhameeye dabcan kitaab yaroo daawacno tajwiida jiro. tajwiidkana waa axkaamta sida qofka saxda u akhrinayo qur-aanka kariimka. leeran qaacida nuuraaniya. qaacida nuuraaniyada waxaan kasoo qaadanaynaa ilmihii dhameeyeen qaacidada qoraalkaan barayna alkitaaba ya inay qoraan, sababto wuu akrin karaa in la qoro. bismi illaahi baa kasra siin sukuun bisti miim kasra lam shada mil taasu qoraa. ya anaga waxaan dhihi jiray baa la hoos dhigay siin loo reebay bis mil la hoos dhigay ya bismillaah saasaanu akrin jirnay soma. marka calaa kulli xaal kaasuu baranaya cunugii dhameeyey. dadka odayaasha dadka danaynaya combyuutarka hores hadduu jiro isagana foomkiisu yaala ma buuxinaysaa. waan arkaynaa maadooyinkay danayna ama powerpoint ama excel ama maaragtay wordka miya web design miya waa isla arki doonaa insha allah. waxaa jira waxa la dhahay tarbiya. tarbiya macnaheedu waxaa waaye akhlaaqda ama khidraaq wax loo yaqaano in ilmaha laga saxa. marka ilmaha akhlaaqiyaadkiisa hadallada waxaana sabab u ahaa waalidka. inta badan caruurta waalidkay fiisa. haddii tusaale ilmahaaga maanta dhan aada ku hayso waxaas allaha kugu rido ood habaar le wado, ilmahaaga habaarku kaa baranayo. marka mana wanaagsana. ilmaha waxawaaye aday kula socdaan xaaladan iska ilaaliya. akhlaaqda la barayo leeran akhlaaq oo ah qofka ka weyn inuu ixtiraamo, waalidkiisa ixtiraamo, dariska ixtiraamo, qofka galaaska la fadhiya ixtiraamo. cunuga inuu discibliin ku hadlo maaha hadallada xuxun oo iskoolka kasoo koobiyeyaan mararka qaar madrasada noo keenaan oo kale inuu ku hadlaan sax maahay. marka waxaa xambaaray inaan maadadan bilaawno. ilmaha qaaraa waxaa aragnay hadalladay ku hadlaayaan, waalidka uma fiirsado. annaga malcaamadii noogu yimaada ama dugsi waxaad tiraahda. marka ilmaha wax badanaan la soconaa idinkeyda ogeyn. marka waan ku baraarujinaynaa waalidiinta inay ilmaha hadallo fiican ku hadlaan. adigaa laga yaabaa gabadhaada yaraad wax u diraysaa, gabadhiiad inaa cayso laga yaabaa hooyadii ama aabbihi wiilka wax dhahayo. malihii way dhahayaan, dadka qaar iyo qalad u arkin, laakiin dad qaar baa sameeya. marka dadka noocaas sameeya ma saxna. ilmihiisu wuxuu ku tarbiyeynaa waxaan sax ahayn. marka habaarkana waxba ma soo kordhiyo. habaar iyo inkaar iyo waxba ma soo celinayo. marka qofka waxaa fiican hadaladiisa inuu miisaamo oo qof hadal miisaamo noqdo. waxaa kaloo halkan lagu baran doonaa tiiriga dadka danaynaya. dabcan haddaad tiiriga danaynayso dabcan isagana waa isqoreysaa, waan arkaynaa inta qof u baahan. leeran english barashada af ingiliiska haddii danaynayan iyagana dadka danaynaya halkaasaan ku arkeyna. koorsooyinkaasoo ugu talagalay waxaa kaloo jira waxa la dhahay weekendi biles. ilmaheena saa la socoto luuqadda hollandeeska iyo xisaabtii qaar way ku adagtahay ilmaha. sidaa daraaddeed marka waalidiinta waa isdiiwaan gelinaya. markay isdiiwaan geliyaan insha allah tirada ogaano. dad ajnebi oo khamiistii lasoo dhaafay 2 qof oo ii timido waa rabnaa ay dhahaa jiray. iyagana waan ku dari doonaa. marka arday qofkii bilaabi lahaayaan u diyaarinaynaa sida ugu degdeg badan haddii allah awood leh.
arrintaas waa wargelin marka u bindaaqa kasoo qayb gal haddaad magaalada naimeeqan gudaheeda degan tahay ama banaankeeda haddaad danaynayso ilmahaaga mustaqbalkooda inaad horumariso fadlan nagala soo qayb gal haddii owlaadii waxba kuu joogin iskiimo shaha iska cab oo asxaabta maaragtay la sheekayso walaalaha dhammaan waxaa idin leeyahay qof kastoo walaalaha ay fariinta soo gaarta akhyaarta magacyadooda inta kama magacaaba hal inaan ka magacaaba xildhibaanka isaga waa xildhibaankii magaalada inuu joogo waa ku qasbanya waxay dadka qabsanayaan inuu joogo qasaba isku yahay waa ku sandulaysan yahay warkaas waa cad yahay soo maha fariinteeda hala gaarsiiyo khayr badan baa idiin rajeyn insha allah